السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجكيني maxay kula tahay jawaabka ugu wacan aad ugu jawaabaysid cadowgaaga waxa weeyaan horumar aad gaadhaysid noloshan waaqiciga aan ku noolnahay riyo fara badan ayaanu leenahay wax badanna waan ku haminaa waxa kamida inaan ummadeena wax u qabano inaan dalkeena wax ku soo kordhino inaan diinta islaamka wax u qabano in waxyaabo fara badan oo shakhsiya oo hadafina ka inoo ah inaan gaadhno inaan waalidkeena ka farxino inaan reeraheena wax u qabano iyo dabcan inaan aakhirada ku guuleysano oo jannada aan galno laakiin markasta waxa xasuusataan dhinacyadiina ha eegina haddaa eegtaan waa habsaamaysaan hore u socda si hadafkiina iyo hankiina u gaadhaan iyo waxa ku riyoonaysaan hadalka xaasidka iyo dadka idinka xumya cadowga dheg hawdhigina oo ha dhegaysanina isagoo isku dayay inuu idin niyad jabiyo ama inuu wadadiina ama dariiqa ku socotaan inuu idinka habsaamiyo hadduu xumaanta cadowga u farabato waxa kuu bannaan inaad mar qura u jawaabtid jawaab quroo adag hadhowtana hore u soco oo ha dhegaysanin oo ha maqlin oo ha baadhbaadhin waxay odhanayaan xaasidku iyo cadowgu haddaad markasta aad waqtigaaga aad ku lumisid inaad cadowga iyo xaasidkaad u jawaabtid oo naftaada aad ka difaacdid waxaad noqonaysaa sida deerada ka ordaysa libaax ee baqaysa ee dhinacyadeeda eegaysa marba ee aakhirkii libaaxuu qabanayo uu cunaayo sheekh yuusuf alqaradaawi ayaa mar waxaa lagu idhi nin saxufiya ayaa wuxuu ku idhi buug baa la soo saaray adiga shakhsiyan lagugu caayaayo jawaabkaagana manu arkin mananu maqlin wuxuu ku idhi waan arkay buuggaas waanan u jawaabay saxufigabaa wuxuu ku idhi halkeed ugu jawaabtay manu maqlin ma telefishinka janaalkeebaad ugaga jawaabtay mise jaraa'idkaa lagu soo qoray wuxuu ku idhi inankaygow waxaan ugu jawaabay buug cusub ayaan qoray buug cusub ayaan soo saaray jawaabka sheekhaas wuxuu ahaa ee cadowgiisa ugaga jawaabay inuu horumar uu gaadho guul uu gaadho waxqabad uu qabto nolosha uu ku soo kordhinayo cilmi cusub uu dadka u baraayo noloshiisa uu qorxinayo ummadiisa uu wax u qabanayo uu wax u baraayo jawaabka ugu wacan aad cadowgaaga iyo xaasidkaaga ugu jawaabaysid waxa weeyaan inaad horumar aad gaadhid hal abuurna aad noqotid oo nolosha aad wax ku soo kordhisid laakiin haddaad dhinacyadaad aad eegtid aad markasta aad ku celcelisid aad tidhaahid kan wii caayaya kanu been buu iga sheegay kanu sumcaddayda sharaftaydu ku dhacay weligaa kama dhammaanaysid waanaad habsaamaysaa hadafkaagana ma gaadhaysid waxaa markasta xasuusataan dadka magacooda taariikhda uu qoray ee hadafkooda gaadhay ummadooda iyo taariikhda wax u qabtay oo ummadooda wax ku soo kordhiyey waa dadka aana dhegaysan jirin cadowga iyo xaasidku wuxuu ku idhaaho ama dagaalku cadowga iyo xaasidku ku hayo waa ka aana dheg aana u dhigi jirin idinkana maxay idinla tahay waa maxay jawaabka ugu wacan ee cadowga ama xaasidka lagu jawaabayo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu